بسم الله الرحمن الرحيم. أولا المحاكو هلاي عبدي افتن ويلكن لا يرهدو بس يساقا افتن هورتا المهم لايد بقى هو هدا دون تدي ويلكن على ورايستي ويلكن استدو uquman amarku af Soomaaliga ku hadli jiray caadi u ahay Soomaali waxaan buunin cadaan dhii interview ban ku la yeelanaya waaba ta Soomaalinimadii ka biibtayba de faj'atan taran walaalkii ka yaran buuba noqdayba Soomaalida waxa lagu sheegay waa run Soomaalida waa tuugo maxay ba inta ka dhacay 4.5 waxuna ninkan cadaankiiba garanayn waa ka dhaqaaqayba walaal heede inaku de horta inaynu isnacabnahay on cadow isku nahay on dad baasnahay waa run xagaa cadaanka ugu sheegaysa adigu waxa soo dhan midda kale meeqa cadaan oo tuuga ah jirta meeqa Asian oo tuuga ah jirta meeqa Afrikaan oo tuuga ah jirta Soomaalida hadii tuuganimo yaani lagu eedeeyay Soomaalida waa dad sharaf leh de qof iyo laba qalad galay iyo qof iyo laba dhib badan oo iskaga jiri karayaan de bini'aadanka dhan baa dhib badan de bini'aadanka dhan bay dad tuugihii ku jiraan xagee adduunyada lagaga arkay ummad dhan oo wada macsuumiin oo wada wanaagsan wiilkan midda kale sidoo u qomanayo u hagaagsanayo u fiicnaayo qof caadi oo Soomaali u ahaa mise waxaan oo dhan way ka soo socdeen walaaliyaa ku soo balamiyay dad baan ishaynaayo cadaan baan la xifaaltamaynayo dad baan wadankoodii ku haysanaayo leena 5,000 sano ka hor baan loo balan qaaday oo dad ma rabnaa inaan iska dhicinay xageed cadaanka wixii ay nagu sheegayeen in lagu eedeeyay ugu rumaynaysa midda kale 4.5 kan iyo qabyaaladan iyo qabiilkan iyo balaayadan aad ka sheekeynaysid walaa muxuu ninkan cadaanka ku wareysanay ka garanaya waa yahay tuugnimadii wixina lagu sheegayo dhan waabad u sii maqraati furaysaaba wax walba waabad u sii rumaynaysaaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا قصدي حتى انترفيو هدي لي شهر ما تصور كلا نقطة يا